kulan wanaagsan daawadayaal halkan waa barteen YouTube-ka ee Somali Press una soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada xilligan aad warkan ku daawan doontaan waxa kamid ah abaabul dagaal oo karana madaxweynaha Galmudug Axmed Qorqor oo laga dareemayo deegaanada maamulka Galmudug mid kamid ah beelaha deegaanka Galmudug oo 48 saac u qabtay maamulka Qorqor iyo wararkii ugu dambeeyay xiisad dagaal oo ka taagan halkaasi ayaan warkeena idinkugu hayaa Soomaaliya iyo Masar oo isku soo dhawaanaya xilli wali Itoobiya ay walaac ka qabto xiriirka Soomaaliya iyo Masar waxaan eegi doonaa kulan magaalada Muqdisho ku dhexmaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre iyo safiirka Masar u fadhiya Soomaaliya iyo adeega duulista hawada Soomaaliya oo lagu sameeyay horumarin weyn iyadoo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre uu xariga ka jaray adeega duulista hawada Soomaaliya qodobadaasi oo dhan ayaad warkan ku daawan doontaan taariikhda waxay ku beegan tahay 22 September 2022 waana maalin Khamiis ah haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibada nagu xiran adigoo subscribe saaraya kanaalkeena kadibna furo gambaleelka si warar kasta oo aan halkan soo dhigno aad u hesho u diyaar garoow faahfaahinta wararkaasi markale kulanti wanaagsan waxaan ku bilaabayaa abaabul dagaal oo ka dhan ah madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ayaa laga dareemayaa deegaano ka tirsan maamulkaasi mid kamid ah beelaha deegaanka Galmudug ayaana 48 saac u qabtay maamulka madaxweyne Qorqor sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ku dhawaad hal toddobaad kadib ayaa xal ku meel gaar ah laga gaaray tabashadii beesha Saacad oo 16 September ee sanadkan ku dhawaaqday inay xiriirka u jartay maamulka Qorqor tabashada beeshaasi waxa ka dhashay in muddo 7 maalin ah uusan shaqaynin kastamka magaalada isla markaana aysan gawaaridu adeegsan wadada kadib markii ciidan dabaabaad xoogan wata oo beeshaasi ka soo jeeda ay la wareegeen baraha control ee magaalada Gaalkacyo kadib kulamo muddo socday beeshu waxa ay isla qaadatay in wadooyinka la furo lana fasaxo gawaarida halka isbuuc ku cadibnaa jidka muddo 48 saac ahna la siiyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor inuu uga jawaabo eeda loo jeediyay isla markaana uu beesha la fariisto miiska wada hadalka kana dulkaco xuquuqda beesha ee uu markaasi duusiyay sida ay sheegeen odayaasha dhaqanka beeshaasi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gaalkacyo waxay sheegeen in wada hadallo hordhac ah oo aan cidi u dhaxaynin uu Qorqor la yeeshay beesha isla markaana ay wada hadalkaasi ka dhalatay in muddo 48 saac ah beeshu yareyso cadaadiska fursadna loo siiyo Qorqor inuu si buuxda uga garaabo tabashada jirta kadib xiriir madaxweynaha iyo beesha dhexmaray oo aan loo dhaxayn waxaa la isla qaatay in dhinacyadu go'aan ka gaaraan oo ay ku heshiiyaan wax mustaqbalka dan u ah Galmudug dan u ah Mudug dan u ah beesha tabashada qabta dan u ah ayuu yiri mid kamid ah odayaasha shirka jaraa'id ku qabtay Gaalkacyo beeshu waxa ay sheegtay in ay lama huraan tahay in dawladda Soomaaliya ay soo farageliso isdiidooyinka ka dhex aloolsan beesha iyo Qorqor inta uusan xaalku faraha ka bixin waxayna qaar kamid ah odayaasha hadlay si adag u dul istaageen in haddii xal buuxa la waayo 48 saac gudahooda ay tallaabooyin hor leh beeshu qaadi doonto beeshan waxa ay sidoo kale Qorqor ku eedeeyeen inuu duudsiyay xuquuqdii ay ku lahaayeen dawlad goboleedka Galmudug oo ay iyagu buddhig u ahaayeen maadaama uu ka soo jeedo madaxweynihii ugu horeeyay ee maamulkaasi Professor Maxamed Warsame Cali Kiimiko sida odayaashu horey u sheegeen xuquuqaadka beeshu lahayd ee madaxweyne Qorqor uu hor istaagay waxa kamid ah guud ahaan xuquuqdii degmada Afbarwaaqo oo dhacda bariga gobolka Mudug dhinacna u xigta maamulka Galmudug taasoo kamid ah degmooyinka uu rejiimkii Maxamed Siyaad Barre u magacaabay degmooyin buuxda sanadkii 1988 sida ay sheegeen ilo loo qaateen ah Qorqor waxa laga yaabaa inuu saacadaha soo socdo u socdaalo magaalada Gaalkacyo si uu miiska wada hadalka ula fariisto beesha tabashada qabta kadib markii ay fashilmeen isku dayo uu ku doonayay in odayaal iyo siyaasiyiin isaga saaxiib la ah oo senator Cabdi Qaydiid ku jiro ay wakiil uga noqdaan wada hadalka laakiin beeshaasi ayaa diiday wixii ku soo kordha isqa qabsigan iyo xiisada dagaal ee ka taagan meelo kamid ah Galmudug wararkana soo socda ayaad kula socon doontaan
dowladaha Soomaaliya iyo Masar ayaa isku soo dhawaanaya xilli Itoobiya ay dusha sare ka eegayso ayada oo ka walaacsan isbahaysiga Muqdisho iyo Qaahira. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Masar u fadhiya Soomaaliya Maxamed Al-Saciid Ahmed Al-Baz. kulanka ra'iisul wasaaraha iyo danjiraha ayaa waxa diiradda lagu saaray xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal ee walaalaha ah iyo sidii loo sii xoojin lahaa sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. danjiraha dowladda Masar u fadhiya Soomaaliya Maxamed Al-Saciid ayaa bogaadiyay dadaalada ay wado xukuumadda dan qaran ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. kulanka ayaa yimid 2 bilood kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu booqday magaalada Qaahira halkaasi oo uu wada hadalo kula soo yeeshay dhigiisa Masar Cabdifitaax Al-Siisi. kulankaasi ayaa horseeday in dowladda Itoobiya ay baajiso safar la qorsheynayay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh uu ku tago Addis Ababa kaasi oo aan weli dib loo waqtiyeynin. Masar ayaa isku dayaysa inay Soomaaliya u adeegsato inay qayb ka noqoto cadaadiska la saarayo Itoobiya oo biyo xireen ka samaysay webiga Niil oo halis ku ah malaayiin reer Masar ah oo webigaasi ka hela biyaha ay isticmaalaan. intii uu socday kulankii Xasan Sheekh iyo Al-Siisi, Masar waxay sheegtay inay isku raaceen in la cambaareeyo buuxinta biyo xireenka iyada oo aan heshiis lagu ahayn, taasi oo Villa Soomaaliya ay markii dambe beenisay. dhowaan telefishinka ETV ee dowladda Itoobiya waxaa laga sii daayay barnaamij si aad ah loogu weeraray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh. barnaamijkaasi ayaa waxaa markii dambe ka daba timid wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo qoraal ay soo saartay ku sheegtay in barnaamijkaasi uusan matelin siyaasadda Itoobiya isla markaana uusan waafaqsanayn xiriirka labada dal. si kastaba falanqeeyaasha siyaasadda ayaa barnaamijkaasi ku macneeyay fariin ay Addis Ababa u soo dirtay Muqdisho sababtoo ah telefishinka dowladda Itoobiya kama bixi karo barnaamij aysan dowladdu raali ka ahayn. ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xariga ka jaray adeega duulista hawada Soomaaliya oo horumarin weyn lagu sameeyay isla markaana la gaarsiiyay heerka ugu sareeya ee lagu qiimeeyo adeega hawada caalamka. ra'iisul wasaaraha oo hadal ka jeediyay munaasabadda xarig jarka oo ka dhacday xarunta hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay heerkan la gaaray u leedahay horumarka dalka iyo guud ahaan dib u habeynta casriga ah ee adeega hawada Soomaaliya. waxa uu xusay ra'iisul wasaaruhu in horumarinta lagu sameeyay adeega hawada dalku uu keenayo kobac dhaqaale oo ka qayb qaadanaya horumarka iyo isku filnaanshaha dhaqaale ee uu qarankeenu hiigsanayo. sidoo kale waxa uu u mahadceliyay cid kasta oo gacan ka geysatay guusha laga gaaray hagaajinta adeega duulista hawada. ugu dambeyn wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Firdowsi Cusmaan Cigaal iyo maareeyaha hay'adda duulista rayidka Axmed Macalin ayaa ka warbixiyay dadaalkii lagu soo gaaray heerka maanta ay u gudubtay hay'adda maamusha hawada dalka kaasi oo lagu qiimeeyo adeega hawada caalamka. halkaasi ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen barteen YouTube-ka ee Somali Press. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena. intaa ku kulmi doono wararkeena soo socda. nabadgelyo.